tirada dadka uu soo ridanaya COVID-19 ee gudaha dalka Sweden ayaa sii kordhaysa waxaana ku jira muwaadiniin Soomaali ah. Maxamed Cabdiqaadir Daare ayaa warkan nooga soo diray dalka Sweden. cudurka safmareeka ah dunida ka dhigay in bulshada ay isku talaabi weydo ayaa dalka Sweden waxaa dad badan oo mujtamaca Soomaaliyeed ay ka mid tahay ugu geeriyooday iyadoo tiro badan oo caabuqan u haleelay ay iminkana ildaran yihiin. Saameynta muuqda ee caabuqan ayaa dhibaato u keenay habsami socodka isdhexgalka bulshada, shaqada iyo ganacsiga, iyadoo shirkado badan oo dalkana ay shaqaalahooda shaqada ka eriyeen, iyadoona bulshadiina ka dhigay inta badan kuwa guryahooda jooga, taas oo ay ugu wacan tahay fariimaha isdaba jooga ah ee dowladda iyo hay-adaha caafimaadka ay bulshada ugu sheegayaan in la yareeyo isku imaatinka, iyo sida lagu sheegay in ay tahay waddada kali ah ee lagu hortagi karo inuusan cudurkaani faafin. Dhanka kale, qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadaha ay Soomaalidu u badan yihiin Ringibi oo la hadlayay warbaahinta qaranka ayaa uga warbixiyay saameynta uu ganacsigooda ku yeeshay cudurka COVID-19. بالحقيقة coronavirus wuxuu nagu yeeshay saameyn weyn dhaqdhaqaaqa suuqyada dhaqaaqayaga sababtoo ah waxa weeyaan waa kow doolarkii oo aad u kacay oo run ahaantii cirka isku shareeray, laba dhaqdhaqaaqii bulshada oo yaraaday oo isku socodkii bulshada oo yaraaday sababtoo ah dadkan wax naga dirsadaa waxay ka kala yimaadaan degmooyinka. xaqiiqatan saameyn aad u weyn ay ganacsigeeda ku yeelatay. magacaygu waa Cabdullaahi Saciid Daleel oo ku nool dadka ka ganacsada Rinkeby oo Stockholm, Sweden. meeshan dukaan cuno waaye, marka haddaan ka hadlo saameynta uu ku yeeshay maaragtay dhaqaalaha maaragtay dukaamada iyo boqolkiiba waxaa la dhihi karaa hadda 25 dhaqaalahooda hoos buu u dhacay oo maaragtay dadka soo geliyay iyo waxgadashadii xoogaa 25 hoos buu u dhacay, hadda 25 buu noqday. hadduu saan hadda kusii socdana waxaa laga yaabaa inuu ay ka sii badato 70 aan gaarno. maxaa dhacay waxa waaye Yurubba cunada badanaa ka imaan jirtay, Yurub badanaa hadda waa xirmatay. أي دكانان إمادة أو صومالي بشي هاد وجود بيسوي في فبراير كبل هذا فبراير إلى هذا مارس صعته واحد دكان صومالي دقائق واحد جدنا ومالهن صامين الدكان ممكن وين هستان أنا جن وين هستان أو مرشنطاء يعني الدكان ممكن وحسينيني والله دباتوين بدنا تاجن إذا ارتقيها كانوا إلهي كان كان دباتوين بدنا تاجن وحن رجينا إنه إلهي نجح هذا دكانيتي أو ما أنت نحيصته. waxaan dukaan ku leeyahay Ringibi Centrum geeska Afrika Batid iyo Ringibi. dhibaatada aan qabno coronavirus, dhibaatada ay nagu riday waa dhaqaalihii oo hoos maray, dadweynihii oo guryahooda isku xireen, wax soo baxaya aysan jirin. aad buu noo saameeyay dhaqaalaha coronavirus. anaga hadda muddo 3 bilood ah dukaanka waa noo furan yahay, laakiin wax dade ma aan helno. Maxamed Cabdiqaadir Daare, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Stockholm, Sweden.